walow ay doonistu tahay mid habboon halgankuna uu yahay hamuun markaasi aad ku gaari karto hambalyadoo lagu soo diro taasina ay ugu baahan tahay halgan habeenkii habeenada ka tilmaanaa goodkii Ronaldo waxa uu aaday mid maxamadaystay isaga iyo xulkaysu markaad haysato samata bixiyo gurmadka degdega Gonzalo Ramos oo kale waxa tahay midaan ka warwarin ilaa 90 daqiiqo siiriga la apuupo waxaanay tani ka dhigan tahay inuu Portugal gaarsiiyay wareegga 16 gool qaali ayuu dhaliyay daqiiqadii 93aad oo akhir lacabka isagoo qalbiga jabiyay Modric iyo Kroos iyo Kurawaadka ina xankooda yaagaskooda markaasi la dhigo xalaal ayay u arkayeen kadib qaybta hore oo Portugal gacan sareysay waxa soo galay qaybta dambe Kroos iyo kale oo hamuun u qabtay gebi ahaanba ka gacan sareysay Portugal inay guusha gaadho iyagoo u dhaliyay goolka bilowgii haafkii dambe iyo goolal kale oo offside looga diiday may noqonin inay liminta habeenkani Kurawaadku la hoydaan Portugal ayaa guushan abaal weyn ugu hayn doonta goolhayooda Diego Costa oo halgankii wadka keligii kaga hor istaagay weerarkii duufaanada ee Kurawaadka bedelada Roberto Martinez ayaa farqiga sameeyay isagoo cadaadis badan ka qaaday dhexda markii uu baxay Bruno xorriyad badan siisay taasoo sabab aan toos ahayn oo noqotay guusha ay xaqiijiyeen dhamaadka ciyaarta Portugiisku Kensense todna swalata Siona ayaanu leenahay Desole ya Modric iyo Kurawaadka wad halganteen wad dagaalanteen hamuuntiina soo bandhigteen balse gari laba nin kama wada qosliso haddaba kulankan si gaaray isu dul taagno 15 isku day way sameeyeen Portugiisku saddex ayay ku aadiyeen halka 13 ay Kurawaadku sameeyeen lixna ku diiradayeen goolka boqolkiiba 60 waxa ay ahayd ku badaysashada Portugiiska halka 40 boqolkiiba ay ka tahay Croatia 584 baaso ay tab qaraaceen Portugiisku oo hamuuntooda ka turjumaysa waxay ahayd kuwa 532 ku dhameystiray teembadii ay garaaceen 386 baaso Kurawaadku sameeyay 312 ayay dhameystireen taakaladu waa 19 Portugiiska iyo 23 Croatia 6 foul iyo 12 foul oo Croatia balse korreyaasha ayaa Portugiisku ka caanamaalay taasi oo inay Kurawaadkuna ay heleen shan dhinaca kale khubarada luqadda jirka xitaa way ku wareereen inay sifeeyaan Ronaldo habeenkii habeenada ka tilmaana waxaad garoonka soo gashay adigoo diyaar u ah inaad ku dhawaaqdo ciyaaraha inaad ka fadhiisatay haddii aad guul dareysataan kooxdiinu goolka hore ayaa laga dhalinayaa halkii aad niyad jabi lahayd waxaad aadaysaa inaad shabaqa soo taabato goolkaas waa laga diiday balse mar kale ayaad dhalinaysaa adigoo u sheegaya koobka waxaan u dagaalami doonaa ilaa neefta ugu dambaysa waa hadaladii uu ku tiraabay tababaraha ayaa ku bedelay daqiiqadii 80aad arrin qof kasta oo daawanayay ka yaabisay bilowgii waad ka xumaatay maadaama aad si weyn u doonaysay guusha laakiin halkii aad niyadda jabin lahayd waxaad istaagtay dhinaca garoonka adigoo codkaaga ugu sareeya ku dhiiri gelinayay saaxiibada talooyin siinaya sidii aad samaysay finalkii 2016 ciyaaryahankii ku bedelay kaas oo dad badan u arkaan inuu halis ku yahay booskaaga isla markaana kursiga kaydka kuugu diray koobkii adduunka 2022 ayaa dhaliyay goolkii guusha adiguna waxaad noqotay qofkii ugu horeeyay kursiga kaydka ka soo orda si uu si diiran u habsiyo markii loo maleeyay in gool laga dhaliyay Portugal waad argagaxday laakiin markii goolka loo aqbalay xulkaaga waxaad u dabaaldegtay si xamaasad leh wiil 20 jir ah sidii uu dabaaldegi lahaa adigoo farxad kula booday saaxiibada runtii Ronaldo koobkan wuxuu muuqdaa mid adiga ku sugaya wariyaha ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay Cristiano Ronaldo ayaana dhaliyay goolkiisa ugu horeeyay kulamada isreebreebka koobka adduunka sidoo kale wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu daaweynaa ee gool ka dhaliya kulamadaasi waxaana la jiraa da'da 41 sano 147 maalmood فهمت عليه شيء كله كلام اسبق لي ميسي بورتغيسكو سنكنسوا ايو يهي اسغو تخبيه ايا حالكو جويغو واغو ugu bariyay waa faaniski Ronaldo marka habeenada ka tilmaana waxay aadaan Portugiisku kuwa maxamadaystay habeenkuna oo habeenada uga duwana Gonzalo Ramos waa uu yeeray isaguna fiyo labadiidan xaqiiqdii qof kasto oo yaqaana ووجيا إن ليه هلا وقت كستو قرن كقول بعضه كارهان دقيقة ده ودنبيا ما همركي يقول رئيسي أو ما همركي لبعض ما همركي صدحات وقت كستو وادي بهتان قول وادي وعكرتان وكونسالو راموس إيه مركز رئيس تصمت تبحي يقول متكدك دقة سيداني أوكله أياد هي wax kasta ugu dabaaldegta Ronaldo isaguna ilaa duhurnimadii waan dareensanayn inaan kulankan helayno rikoode muddo badan ayaana diyaar u ahaa iminka waxa la ismudan yahay Portugiiska oo la isku caanamaali doona waa Spain La Roja derbiga jasiirad la mooda Iberia ayaynu sugi doonaa
oo holaca faaniska Ronaldo dhoolla-cadayntu waa u xalaal halgankiina hambalyadiisa ayay sugayaan soo horay Luka Modric iyo kuraawaadka Desole ayaanu leenahay waxayde helay waa jeedado siliyad rooxe dhinaca kale wixii laga calaamadiyay kulankii Spain ayaynu si gaar ah u dul istaagi doonaa waxa ugu horeeyay indhihiisu soo jiitay waa goolka Pedro Porro ma ahayn inuu ahaa goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyo xulka Spain balse waxa uu ahaa calanka lagu leeyay garoonka markii aan wax yar baadhay ayaan ogaaday inuusan ahayn calanka dal Carbeed balse uu yahay calanka gobolka Extremadura ee dalka Spain kuna teedsan xadka Portugal laakiin waxa ugu xiiso badan maaha halka uu ku yaalo ee waa sababta calankaasi loo taagay xilligii Pedro Porro uu goolka dhaliyay isla markaana isagu si faan leh ugu tilmaamay jawaabtu ma sahlan tahay hadaba Pedro Porro waa ciyaaryahanka kaliya xulka Spain uga soo jeeda gobolka Extremadura taas oo sidaasi darteed taageerayaashii gobolkiisa ayaa calanka kor u qaaday si u muujiyaan taageeradooda iyo faankooda iyo kaliya ahaantooda xubintu waa kariskii iyo kala ahaadintii anigu waxaan ahay Maxamed Tirike midda xigtayntaynu cidda isballaqday soo karsan doono inta ka horeysa sida ayaamaana Allah